وإن مسيرة التجديد في هذه البلاد المباركة برعاية من ولاة أمرها الميامين وحرص واهتمام من الشاب الطموح المحدث الملهم. geedi socodka casriyiinta waddankan barakeysan ee ay horboodayaan madaxdiisa sharafta leh uuna ugu cadcad yahay wiilka dhallinyarada ah ilbaxa ah ilhaamka ilaahay siiyey ee aragtida dheer dhaxal sugaha waddankan la ilaaliyey waa mid halkeeda ka sii soconaysa iyadoo ku dhisan aragtidiisa cusboonaysiinta iyo ilbaxnimada ah ee xeelka dheer si walba oo ay handadaadaha iyo cadaadisyadu u jiraan. ولي عهد هذه البلاد المحروسة ماضية في رؤيته التجديدية الصائبة ونظرته التحديثية الثاقبة رغم التهديدات والضغوطات. منبر المسجد الحرام الذي يجب أن يكون صوتا للحق وصوتا للمظلومين وصوتا للانتصار للمظلومين على الظالمين، لكننا في آخر الزمان حينما يخرج إمام الحرم ويصف هذا المعتوه هذا المستبد الطاغية الذي تلوثت يداه بدم المسلم. منبركي مساجدك حرمك waxay ahayd inuu noqdo codka u hadla xaqa iyo goob dadka dulman looga heliyo kuwa dulmiga ku sameeyay balse adduunyo gadoonku waa markii uu soo istaago imaamkii xaramka oo uu ku tilmaamo ninkaas daalimka ah ee gacmihiisa ay ka tifqayaan dhiigga muslimiinta ayuu wuxuu ku tilmaamayaa wiil dhalinyaro ah oo ilaahay ilhaam siiyey wallee been baad sheegtay lacnad allaha ku rido kuwa beenta badan. ويقول إنه الشاب الطموح مازال الشاب الطموح المحدث الملهم. يا الله المحدث الملهم كذبت لعنة الله على الكاذبين. qofka ilaahay uu ilhaamka siiyey waa qofka uu ilaahay xaqa waafajiyo ee wax ku xukuma kuna hadla. ninkaas daalimka ah wuxuu gaarsiiyey heerkii Umar ibn Khattab diinta ayuu ka ganacsanayaa. المحدث الملهم هو الذي يجري الله الحق على قلبه ولسانه ينطق بالحق ويحكم بالحق. رفعه إلى مقام عمر بن الخطاب. تاجر دين تجارة الدين أقبح عند الله ممن تتاجر بفرجها. qofka diinta ka ganacsanaya Allah agtiisa wuxuu ka liitaa haweenka jirkooda ka ganacsada. diintu way ka qaalisan tahay in laga ganacsado. diinta nafta ayaa loo huraa xaramkii ilaahay ayay diintii ku iibinayaan. kuwa waddankaas maamula waxay isku arkaan inay sharciga ka sareeyaan oo waxay leeyihiin wadaad xumayaal u sharciyeynaya dambiyada ay geysanayaan. ilaahay carabka ha ka wada jaree. الدين أغلى من أن يتاجر به. الدين تسيل لأجله الدماء لا يتاجر به. وأين؟ في حرم الله. يعتبرون أنفسهم فوق الخلق وعندهم من يشرع ويبيض جرائمهم من علماء السوء ورهبان الضلال قطع الله ألسنتهم.